maalmoodna waa 10 bari oo Ilaahay uu doortay wuxuu Ilaahay doortanay qiimo ilaa intee la eg ayuu ku leeyahay shay ma min ayaamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول إن أمد إكاهر سوايان أد أفلقا ديسيد أحمتد جيرانك وكان بتقلي وايو والدك أدكو عاسسيد هنسها أدقيستيد وحلبو فاحشة هاو دوانين إكا ديراو ومالما إلهي أو دورتي ومالما آدي آدو فضل بدن دورشد أو دورتي وحاو كسي درنبا وفضل قود أدكسي أغانيسا إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام وإذن سلام عليكم وقالي ميلو البعدون كادكو جوكتين وولاشينا مريما سو دوادا يعني إذن الله يكسو دوادا ولا القرق إذن نجعل هل كاد نقدا ونسان waa دعوة فاميلي إن شاء الله ولا ليك قالي سيدا وذا أغنى بوحانو بلاوتي tobankii adduunka ugu khayrka badnaay ugu fadliga badnaay Ilaahayna uu jeclaay tobanka maalmoodna waa 10 bari oo Ilaahay uu doortay wuxuu Ilaahay doortanay qiimo ilaa intee la eg ayuu ku leeyahay shay walba ayna ka muhiimsan yihiin waa maalmo aad iyo aad u fadli badan sidoo kalena waxa ku sii jira maalmihii xajka bil ahaanna waa bishii xajka ana maalmo aad iyo aad u fadli badan sida daraaddeed nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ma min ayaamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء حديث كان وحديث ابن عباس ورنا النبي صلى الله عليه وسلم حليه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام مجرى مالما عمل وناكسن لقبته كفد لبضن مالما هانيتي إلهي أكتي سنة لو جعل بدن يحي أيودا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيام العشر يعني حلول جيدا مالما هانتوانك عن كجرنا مركز الصحابة يحدهن قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله رسولك الله miyuu ka fadli badan yahay jihaadka maalmahan miyay ka fadli badan yihiin jihaadka waxay la soo boodeen jihaadka la soo boodeen waayo jihaadka amal la sameeyo asaga ugu sareeyo qofkii inuu jihaad naftiisa uu ku waayo markaas ay waxay dhaheen rasuulka Allah miyay ka fadli badan yihiin maalmahan jihaadka wala jihaadu fi sabilillah markaas nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay haa way ka fadli badan yihiin jihaadka ilaa هل قف أي صورة إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء رسول صلى الله عليه وسلم حيري يعني ويكفد لبدين عيري إلا قف مال كيس نفتي سوقوا جهاد كاسيتي يعني مال كيس وهبك يوحي وقبحي وكدق على معي يفرس كيسي نفتي سوق سوا يوليه رسول صلى الله عليه وسلم حيري قف كاس مركي لغا صورة ومويه inta kale way ka fadli badan yihiin ayuu leeyahay maalmahan tobanka ayaa ka fadli badan ayuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam marka maalmahan tobanka maxana looga baahan yahay maadaama uu dhahay nabiga sallallahu alayhi wasallam maadaama ay ka fadli badan yihiin amal walba oo la qabto ay maalmaha ugu fadli badan yihiin ilaahayna uu jecel yahay maalmahaneyti amal walba oo wanaagsan inaa qabana ayaa laga doonayaa ha yaraado ha badnaado maalmahan tobanka dheedheeliyayna kugu dhaafin waxaa kamid hadii ahaan lahayd inaad soontid laga bilaabo maalinka koowaad ilaa maalinka 9aad maalinka 10aad waa ciida Carafo laakiin waxa laga doonayaa koowaad ilaa 9aad inta u dhaxayso koowaad ilaa maalinka 9aad inaad soontid waa hadii aad awoodi kartid hadii aadan awoodi karinna 8daas bari hadii awoodi weys maalinka 9aad yees ku dhaafin waayo maalinkaas waxay leedahay fadli gooni ah ee leedahay maalinkaas ku dadaal sidii aad ku soomi lahayd waxa kale oo kamid shanta waqti salaadaha inaad ilaalisid sunooyinka aad raacisid sadaqana inaad baxsatid ha ku yaraato ha ku badnaato waa ilaahay agtiisa sadaqa yaraan ma gashay ha yaraato ha badnaato ilaahay agtiisa sadaqada way ka weyn tahay sadaqadii aan been tobankan bari lagu jira aad baxsanaysid intii hore aad baxsanaysid tan ayaa fadli badan ogaa waxa kale oo kamid baryo badan inaad la imaatid oo ilaahay aad barisid xajaadkaaga inaad ilaahay u sheegtid dambi dhaaf ilaahay aad weydiisatid
xaalad walba ku haysatan ina ilaahay aad barisid waayo ducada waa maqbuul waxa kale oo kamid ah quraanka aqrintiisa ina badisid waxa kale oo kamid ah dhikri ina la imaatid rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay maalmahan dhaxdooda waxa badisiin tiru fiihinna min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid marka xuska alle ina ku dadaashid istighfaarta aad u badisid waxa kale oo kamid ah dariska ina wanaajisid waaridkaaga u samafashid oo maxallaha u baarinimo fashid waxa kale oo kamid ah qaraabada ina xiriirisid waayo acmaal walba qabatid tabanka bari ku jirno way ku sii lawalaabmaysa aad ay u fadli badan tahay inta aan tabankan bari ku jirno iska ilaali waa maalmo ilaahay uu jecel waa maalmo ilaahay uu doortay iska ilaali inaad xumaan la imaatid ina umada ay ka harsan waayaan aad aflagaadeesid xamatid jiraanka uu ka nabadgeli waayo waalidkaaga aad ku caasisid heesaha aad dhageysatid wax walba faaxisho ah ha u dhawaanin ee ka dheeraaw waa maalmo ilaahay uu doortay waa maalmo aad iyo aad u fadli badan doorashada uu doortay waxa ka sii daranba oo fadligooda aad ku sii ogaanaysa ilaahay maalmahan uu ku dhaartay oo wuxuu leeyahay wal fajri wa layaalin 10 waxaan ku dhaartay fajrka ayaan ku dhaartay iyo maalmahan 10 ah waana 10 ugu horeysa bisha Dhulhijja marka insha Allah walaalay qaaliga waxaan rajeynayaa maalmahan inaan ka faa'iideysano dhamaanteena amal walbo wanaagsan oo khayr ahna inuu ilaahayna waafajiyo oo aan sameeyno marka ilaahay waxaan ka rajeynayaa dhamaanteena inuu noo wada waafajiyo maalmahan khayrka badan maalmahan barakada badan maalmahan ilaahay uu doortay maalmahan ilaahay uu jecel yahay insha Allah walaalay qaaliga waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysano dhamaanteena inta aynu muuqaalkiisa iga dib ugu kulmi doono waxa idinkaga tagayaa yabna aadam cish ma shi'ta fa innaka mayyit واحبب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته